فيلم waxaa lagu tarjumay studio farm approach Mogadisho هلا وراد كال الجن ما قبتها وزير كارمي سارتا تلفزيون كإنا كديشت ووزير سيرتي سدي بنان كيتت إلو جوجو مك عم سيست ميا ورا نفس داد إنا ونحذر لو باهي كيا هو أنكو دوري أنا مرتا أنا عم سجلس كاي اللي ما يأخذ أنا جنن وريا أنا وركا بنان كصديق قفن كبقى أنا ملحن أنا كسفي عني فيري وكيلا هو تديلها لنا وريا كنا كفور توتال أكو تشي وحكلو كل شيء حتى مرة بالتليفون كي صوّع على سيدان طورتك هاك توما يأخذ بدارك صبح يصبلنا وامتاس أصحابي دقيست أخبار هذه أدوان أكثر إذن هايا ما حد شخص ما كتقرتها أمس أخونا كنا أفضل على كل شيء أنا كبيح ما يأخذ وحاس وأخذ حجيرة قف وحكي هذا كرتنا مالها هو أخبار قرمي شيء هذا بديت كائن ما هو به يا مدن أخبارت إنه يسنو شيء هذا قبرات هاي مدن هايدين بدنا وكريده بطنا له مالونا وحكل ما يسمع الكم قني بدنا هذا ما دي كرت مدنات اللي هاي شغالين تايم موجودو دقيست هذا شيكا ونكسنا إذن هاي شرحات إذن دكتكو هاي إذن ده تيفي ده سدح أو سرّيسو سدح دودنا أنا جا بقول كي بتطبعات كسي سرّينا إن ده هكو فيريا بل أنا جا تيفي جاي نمر كهرب بقول كي بل لبعتني تطبعوا تجنا دال ولا سنة سمسين كدبنا وحيو جاري أنا إدين شيء جاي إن ده كسو هاي دقيست تيفي جاي نمر كان إدين كدال أو كلا وريكسن أت سمسين أولي بدال اسكو وريكسن إهن هذا اللي إدين كود دالينه أنت فيريا هذا وقت أركتن ما هو دال كان جارني لكن أنا جن يدي وحكي جوحة جنال كان إنا كدينا لمبر 1 أنا كدينا مدرس بلوّاي وايه مدني هذا محسمينا هبينك هتاد حل في عصي حتى مركتين أولي بحال ساعة ما تان وحين لسي أنا قفين أصفي عم نقصي حتى أنا قطر النقيسين جنال كان وحجارة لمبر ككوبت لمبر كلام ما هني صفي عن السقفيريا لمبر 1 أيو تيفيجنا تجايا ساعة بس كبدني قد داي ماشي على بس مكارياش أنا وجهان أول سدح سمكارياش أنت كبحين يا كهاد لا مدن waxaa ka hadlaa wariyaha caanka ah ee akaash la dhahay iyo saaxiibkiisa oo weliba shirkadda muhiim u ahayn labadoosa u baahan maas adkaad loo sid beec daal way shaqa ma rabaan wareekii waa tiris le rabaan maxay kala rabaan ilka maqna aamusan ku dhaha labadaas waa shaqeysahayaan laakiin saxay ku xun yihiin xilligaan ay maqan yihiin waa soo daahayaan shaqadooda qof kala qabanaya كاميرا كوات وريج farmapproach.com ان انومان ديار يا تسمع ديارنا اكشن hadda waxaan ku suganahay kalaab weyn ee ku yaala magaalada kalaabkan waxa isugu imaada dhalinyaro fara badan jiilka maanta jirana iyagoo siyaasiyiin ah oo siyaasadda ka tirsan haddana arrimaha siyaasadda waxba kala ma socdaan way iska baashaalayaan habeenkiina kalaabyada kaliya ayay soo aadayaan anigana waxaan rabaa arrimahaas inaan idinkaga soo diyaariyo caddeemo aad idinka ku qanacdaan dadkaad xilka u dhiibateen xilka inaysan idin hayn wax badan aad ka ogaataan anigoo akaasha arrinkaas idin soo gudbinaya saaxiibkayga anuu kaamirada ayuu iga duubaya Spy TV صاحب تيفي جينا كاميرا قرصون دتك سي خدن ايو امسنايا بس هدا wax arkayaan aan ku dhahay beentada ma no alo baye kaamiradan qof inaad gacan ku dhigiyo umleha ina hadka gaarno way hadii kal dhibaato dhaca soo bax كوركورو نقدر في الصبح هذه لو ودي يا اخي انتيك هاي كاميرا ما هي سحوه ايش اكبر furahan adiga miyaa leh كم بكن أردكو فرها باور كي وين كده BMW ما كسي أنا إسكالهم كده هنا su'aal miyaan ku weydiiyey إياه
aniga sheekadan soo dhammaystiraya ay isugu bay akhi iga raali noqo hal beeg oo takiila ayaan rabaa isii iya shakiila ana ha shakiila ayki war fiiro ka qaldan warka takiila dhe shakiila maahane saaxibkii adna takiila ama shakiila hadin dhahab meeshii lama hoose kana khatiya akhi caadi waay waa bashalena labadiina maxaad qabataan aniga maya waxaan ka shaqeeyaa moogtaa shirkadda MC bishii waxaan ku dhahay waxaan qaataa 120 kun mudiiraan ahay khatar sirdoonna waa ahayaan ku dhahay sidee sirdoon adiga maxaa qabataa aniga run ahaantii maya abaa biyaha kulaalka iska dhaafno biyaha qabow cab ilaan adaa kulule aniga shahaado PhD ayaan Mareykanka ka wataa marka waxaan rabaa inaan noqdo saxafiyad aad u fiican oo caan ah aniga akhbaar waxa ay soo gaartay meeshan in lagu hayo waxyaabo sharci dara anigna sidaas darteed ayaan halkan u joogaa waxaan rabaa inaan dadkaas fashiliyo ilaan kaamira qarsoon ayaa halkan dhigan waxyaalo sharci dara adiga maxaa ka shaqaysaana ii sheeg TVC ka shaqeeya TVC qatar waaye laakiin ma ekidin والله كان فيري شامبين يقدر في شامبين يسي صحيح أبورنتا ميان أديك TVC ما كشقيسا ولقي كمان أركز دم قعدتاس أديك أنكو داي خطر هاي عادي ما بتهيد به وريش شوف منو مليس إنه شاك به يا أنكو أغاني ماي أنا معناه هيك سداس ما هين أنا صحيح أنا أرين كلا أيام دمع صناعي ما وقتها يورت هذيك تاس لكن أنا حكوا شيء يا خفتان سردون إن تايا وملها سرتين أنا أو شيء يا هديك البحر قلنا لمبر كيجو waa 96 78 99 waa soo bici kartaa bye subax wanaagsan daawadayaal waad salaamantihiin waxaa idinla hadlaya Vijay Gupta sidaan u leeyahay sidaan bashqada yaa idin wada sidaan oo waa laga badan rabaa marka maanta waxaan rabaa dhaqso wiilkayga arimo maxaa dhacay boosoola imaad ka soo qaadaan warqada aan ka baashaan maxaa adiga waad fiirsan lahayd dhaqso bidix ka kale wiilkayga dhaqso akaash ayaan u baahnaa waa wiilkayga barshad ma u timid ii dhibal okay halkan waa inaad ii saxiixdaa kaanan saxiixay mahadsanid mudan adiga mudan dhaqso wiilkayga sidaan ayaa loo baahan yahay inuu baashaasho dhaqso bashqada ayaa soo diray wiilkaaga loo soo diray balan interview waa wiilkayga wax fiican ayaa la sameeyey marka waa inaad soo baasha keenka lacagta yaa lacag ugu dhigan tahay hay okay aan tiriyo wiilkayga intaan qaado ku soo baasha xataa sadaqada ka arkay keen ii soo cel lacagteeda farxadda badan iska yaree shaqada looma ogola fursad la siyaada shaqo ka fiican ayuu helay wiilkood kama seeraysaa miya qofan kama seeramaan way markan wiilkay kama seeray shahaado xun aytii wata markaas wax kale ismoodayba waxaan oo kale ma lagu faana darbigay ku dhagan tahay dan iyo xaaji wax laga leeyahay male asxaabtiisan ilaa hadda way shaqaysanayaan lacag fiican ay ku shaqaysanayaan ninkan shaqo 10 kun u raadinayo aaba mushaarka aan qaadanayo muhiim maan ee shaqada aan qabanayo ayaa muhiim ah kaale shaqadaada ka dhax arkay fiiri ma taqaanad kan ninkan waa awowaa magaaladan madax ka ahaan jir weligiisa intuu horumar gaari lahaa waa kana dhulka ka hooseeya hadeertan no midkan kalena waa aabahe macnihii adiga awowaha noloshiisana wax badan ayuu journalist soo ahaa waxaad u hadlaysaa aabbaha inuu horumar sare gaaray camal anigoo aabbaha ahna 37 sano jaraa'idka oo kaliya akhrisan jiray sababtaad u akhrinaysid maxay tahay adiga ma barabtid inaad horumar gaarto faybol wax ma sheegaa adiga war leey meesha u joogtaa meeshaad adiga wiilkaaga ka waan leed aniga igu sii deynayma wiilkaaga noloshiisa iyo mustaqbalkiisa intaba hadii aad danaynayso noloshaada daqiiqad yar ka soo saaray kadibna waani wiilkaaga waan u baahan yahay war كان ورقة يا كل هذا أبدا وانينا ورقة مشغول سنتي وريا سينا هدي النولش هذا وحك بديل ويس واحد وقاني سدر بجيف إن نقونيس هاي كالي فربوتو لك بس أنا جاي على هاللاي أنا واحد فانسينا إزديجي مركا ديجا ها إزديجي وكبريا صاحبكي ما حاوس هو واضح ناقص انت هبه حناقي iska dhaaf naga wad moodsada okay sukaadiya waxaan u baahnaa nin lagu magacaabo Vijay Gopal wuxuuna ahaa nin saxafi ah marka hadii aad taqaanin ii sheega igaraal noqoniga ma aqaan ma isaas hadeen markii ugu dambeysay halkan ayuu deganaa muuqaal ahaan hadda xoogaa waad isku yara egtihiin dhanka timaha iyo sanka fiir hadda sankiisoo kale ayaad lahayd ma aqaan fiiri
fijeegaas meeshan waa uu degan yahay beentaada ma hadda ka hor ayuu gabar 18 jir la baxsaday dadka dhan magaciisa haddii la sheegay xitaa qofkii sheegay waa ay dilaan marka adiga baxaas ku barya ايوه صاحب ازديار يا saaxiibkeen vijay 30 jir haddii aad la ordi lahayd waxba uma arki lahayn laakiin 18 jir aad la orday sheeka waali awaabe naga dhaaf may anima ku jiri asal loo hay vijay wiilkayga waa adiga wiilkaaga miya ها كما سير صوصو مملسك نحوي 18 جير بركة الأرض استكال عليك الساوح وجران ان سنيل نينك ورئيسك ان كقادين وربحنتيس وانا سفي عنا دي قدي وانجليسان اوكي اوكي هلا وديتي ها سو هذا si qaasina isku aragnaa yaa rabaa maanta سوق هذا اللي نقوله مايا ان waxaad ii sheegtaa adiga hadda intee ku sugan tahay ان اوكي هذه صاحب ايه شكلها ساكنت ما هو مايا عوض يا الهدلي ماينو مايا شيكا حالي قبيح هذا جرتنا marka hadda dhameystay koob bariya waa in qaas arinta laga dhigaa okay haye kaligeyga aan soo hadal intee ku sugan tahay hadda TV-ga ayaan ku suganahay wow KBC miyaa ku sugan tahay beelo waay hadda waxaan maleynayaa wariyaal khatar inay meesha joogaan en okay adiga inta joogtaa ii sheeg aniga ku sheegaya meeshaan jooga laakiin marka hore waa inaad la kulmtaa okay waayahay bel هذيك لكن waxaan ku weydiin gabadha waxay tiri si qaas waa inaan u kulannaa waa ifaanteen isdajiyo marka iidaab ku soo cusub miyaa gabadhan ad meeshii ka gaadgaadi lahayd ya sewa horumarka dunida halo akaash ciwaanka disiis igu soo celi baa aniga daay si fiican uma fahmin TV oo iska caadi waayno baaburaqiis waay meeshaan u socdo okay waayahay hadda adiga inta joogtaa marka aniga sida ugu dhaqsiyaha badan kuugu imaanaya Spy TV ayaan joogaa oh bel waa Spy TV ma joogtaa ya en marka igu soo celi Spy TV Spy TV ayaan joogaa messenger ayaan ku leeyahay ii sheeg waaya dhinaca ka joogtaa en dhegeysa adiga inta fiirinaysaa macnaha inta joogtaan ka wada aniga meesha shaqaan u imaado Soomaan saxafiid ayaan ka hay marwo ii sheeg ba maanta yaa la kulmi rabtaa linku ay la hadlaysaa waxaan rabaa aniga madax shirkad inaan la kulmo maanta ma la kulmaysid anaa ku dhahooya hey mudanahaaga waxaa ku dhahdaa adiiti ayaa ku sugayso mudanaha qaf la kulmi kara mar hataa madax ahaato ama mijing ahaato soo labar gelinin meeshaan ma la kulmi karaan ku dhahooya anisawaay ay link qatar waayaan ku dhaaf Soomaaliga si fiican u yaqaan gabadha way iga qancinaayaan ku dhaaf kuwad mudana muhiim aan u ahay okay waayahay haddii saas ay tahay wari anaa kuu geenay oo meesha wax ka eenin asaga wax walbu sheeg na keen soo bax no saaxiib linku wax fiican ma sameyn gabadha wuu ii soo wada xaggeen oo soo wada maxaan sameynaa marka ma xasmeeyna heeno sheeg dhageys gabadha hadii meeshaan ugu aragtani adiga baxar ayaan galaynaa marka meeshaan waa inaan ka gambinaa okay صباح isoo raacb asifan waryaada maxaa idinku dhacay sida cuuriyaan kale maxaad gurgurinaysaan hoy managa aamusaysa hortgo jinyeeriga ay xiraan ku dhahay shaqadaan bilaab socob shaqada waan ku caajisay waryaa maxaa gurguranaysaa kukumo dheelona man dheelaysaa baadna man dheelayan ku dhahay balaayin la dheesha ay soco na keen soo bax xafiisyaan dhan macnaa anaa wax ka ahaa في رالم معنا تشيمي يشكو حفيز كيس أيوة كجرا أوكي حفيز كجرا واي ولا كل مكرت أورتين صحيح ودقيس ماشي أنا حلقة يابا إنهم هالس كقولنا مهل كلا يعني كبحنا مكان يا أبي إقبل وندع ربع إقبل أبي كي أنتوا هذه muuqaal qurux badan waa leedahay waqtigana aad u ilaalisaa waqtigan ku bilami maahane waqti kale ayaad batimid beel waa soo baxay may ku bariha igilna aniga waa iga dhafno waxaa halkan idinkugu wada yeeri akhbaar aad iyo aad u wanaagsana idin haya akhbaartaasna akhbaar kale ma gabar cusub aan ugu soo birto wariyaha qatar oo dheed furiin magaceedan waxaa la yiraahdaa tt soo dhawow waad mahadsantihiin meeshaan maxay qabayd kana cilmay buufaysaatan qoftaan qof kale maahan waa gabadheeda adeeran u ah iska jira yaa waa gacan garan eber waraa fir saamaxa uf adeer aniga qof ayaan rabaa inaan kula kulansiiyo ila kulansiiyo okay aabahay horta asiga hey kaalhayno akaash adiga halkanaa lagaa wacayaa warkaana waa ku sugaynay orod u tag soo dhaqsa akaash soo socay أيه كذا يعني قف كان مجلس وأكاش وحنا كشقيا KFC يا كوكيري ووري عنا وقطر وحنا اللي قالوا بهني أنا جينا أسق
ku daysano oo aan wadada ku socdo ku socano marka u sacbiya akaash maxaa kaa galay nin geel badan oo gabuun badan oo magaajaad ka cabsanaysa waa ku jirtaa shabaqa waa ku jirtaa adeer sidee u hadlaysaan ii sheeg ninkan beenow kuu sheegay intaa khaatun loogu taagay intuu tv kale ugu shaqeeyahay intuu markasta ku soo daahaa war weligiis alihiisaan ku dhahay hal mar xataa wax fiican ma uusan samayn markaasaad leedahay tv kale ka shaqeeya kana saddex simi kaa rawaa adeer waa ku baryaa aniga ayaa been ii sheegtay soo maahan haqish gabadhayd aditi waa run aniga been waan kuu sheegay laakiin waxaa run ah inaan adiga kaa helay runtii shirkaddaas KBC intaad daba cararayso noloshaada yaysan lumin KBC intaad tidhahda ayaa been ii sheegtay KBC aabbahayga rajadiisa ayay ahayd balse waa uu ku guuldaraystay uuna ka haray laakiin aniga KBC waa rajadeeda ugu weyn rajadeeda sidaan u rumeeyana lagama yaabo marna inaan niyi jabo ama dib aan isu dhigo waa inaan hore u socdaa ilaa heerkaan rabo aan ka gaaro igaraal noqon soo gali karaa een hore u soo dhaaf friisaas martiin waad mahadsan tahay annaga hawsha aan rabno inaan kuu dirno saxaafad oo keliya maaha waxaan kaloo rabnaa inaad baaritaan samayso baaritaankaasoo ah gabar ka soo dhacda dabaqaasoo aad iyo aad u dheer baaritaan waa ay sameeyeen booliska laakiin wax way ay ka keeni waayeen marka waxaa la rabaa gabadhaas dabaqa qaabkay ugu soo dhacday iyo qofka dabaqa ka soo rid in la soo ogaado meesha ay degneed ayaan laga soo tuuray albaabkani waa uu xirnaa booliska marka gal isdheheen waa ay geli waayeen aniga muhiimadeena waxa waa gabadhaas in la dil in kale waa in adiga soo ogaataa marka hore saxafi ahaan sidee baad kiiskan ku caddayn kartaa mudana aniga wax kale ii raada master akash adiga waan u jeedaa indhaha taagaysaa hadda waxaan doonayaa wax walba inaan aniga kuu sharxo dadkan waxay doonayaan gabar katriina la lahayo oo la dilay gabadhaasne waxaa laga soo tuuray dabaq 8 biyaana ah gabadhaasne waxaa la doonayaa cidda dishay inaad soo ogaatid ayaa lagaa rabaa adiga booliska baaritaan far badan ayay sameeyeen markay meeshay tageen waxay arkeen gabadhaas qolkeeda oo xiran marka waxaa lagaa rabaa arrintaas daha saaran inaa adiga daha aad ka qaado sidaas maaha waxbaa ka baqina ninkan wax walba aniga yaa fahamsiiyey inaga isdejiya iga raalli noqon mudan aniga wax walba oo meeshan ka dhacay waan fahmay hadalladiinoo dhanna way ii dhaceen teeda kale waxaad ogaataan gabadhan la dilo Catherine lagu magacaabo iyada naftirkeeda ayaa waxay ahayd dembi baare waxa lagu dilayna wax kale ma ahan midda kale markaan qolkeeda baaray arrimaheeda dhan aan u dabagalay waxaan ogaaday labadeeda lug cidiyaha ku yaala uma dhammaystirna rinjiga sababtoo ah laba faro ayaa rinjigaas uu ka dhameeya meeshaasna waxa cad rinjigaas markay marsanaysa inuu qof u imaado rinjigana meesha ay iska dhigtay si qofkaas ay u dabarto marka qofkaas isma aysan dilin ee waa la dilay sababtoo ah markaan sii baaray waxaan ogaaday miiska waxaa saarneed laba koob oo markaasi la isticmaalay labada koobna hal qof laba koob ma isticmaali kara ilaan meesha waxa cad qof kale inuu meeshaas la joogay albaabkana markaan fiiriyey waxaa bacad albaabka gudaha in laga xiray marka dilkaasna wuxuu ku dhacay gabadhaasi waa loo geystay ee iyada isma aysan dilin CC kameradana waxay soo saari weysay xitaa qofka markaas iyada qolka kula jiray sababtoo ah CC kamerada dhinaceeda dambe ayaa la fadhiyey waa wariye akaash oo ka socda KBC TV adigana waxaad ba isku malaysay dameerkii faraska la daaqay sidaas faras laguma naqdo mar walbana dhaqanka waddankaaga ayaa la ilaalishaa taas ayaana sharaf ku ah waa i fahantaan u malaynaa waad mahadsan tahay iga raalli noqdo waad mahadsantihiin waa ka baxsatay mudan akaash waan ku qaadaa mar labaad ayaad mahadsantihiin mar kale aan idinku celi همبليو صاحبكي همبليو كده هي هبكيسي aniga ku hambaleenaya
hambali mahadsanid كيف بيصير شغكاش جنال كيغن وحربة هرمر وين إناد جارسيسو hambaliya waa ku hambaliya كالا كفو قلنا إنا كم براني كودشي إدقسو كنال كان كروا إنا أوقات عديك هاي ساسا كاربا هاي عمس شبنا hambali iga raal noqdo maansantiin iga raali noqo sababtoo ah aniga arrimahaaga si fiican u ogeyn ayaan iska kaa dharbaaxay qof kale haddii uu booskaaga ku jiri lahaa xitaa tan wuu samayn lahaa mar kale halkan waa imaanaysaa soo maaha sabab maxaan u imaada marka waan iskaa weydiinaya leh ka gudub midaas hambali ayaan ku leeyahay yaa adiga maxaasaan igu fiirinaysaa xafiiska marka la iskalama shaqayn doono marka waxaan rabaa aragtidaada inaan ka dhargo gabdhahan ragga sidan may u fiirshaan sabab wiilasha le miyaa xaq u leh inay gabdhaha fiirsadaan gabdhaha xaq ma laha miyaa ii sheeg waayay maxaad iga aragtaa waxaan arkaa inaadan garka soo jaranin sankaagana uu gaaban yahay timahana aad soo gaaggaabsatay waxaan kaloo arkaa indhahaaga in waxyaabo badan ay ku qoran yihiin jirkaagana uu si fiican u dhisnaynin laakiin dhib ma lahan waa iska qurxan tahay qof caqli lehna waa tahay gabadha markay qurux badan tahay waxay jeceshahay wiil foolxun inay jecel ku abuurto oo sidee ii sheeg sababtoo ah marka ugu horraysa adigaan is arkaynin adiga maadani aqoonin anigana kuma aanan aqoon saasay tahayna isla markii waad i aamintay sheekadeydana wayba kugu socotay runtii laakiin sababta ma taqaanaa sabab isla markaasba adiga waad iga heshay xitaa anigoo teleefon nambarkaaga aanan ku weydin ayaad isiisay micnahaas ma taqaanaa micnahaas maxaa waaye micnahaasna wax kale maahan waa cudurka dadkoo dhan ku dhaco cudurkaa ii sheeg jecel caaw ciidankii soo qabta aya soo baxa qabta inta soo shibdha warya soo warya aamus maxaad iga rabtaa maxaa waaye ninkaa qaladka ogolo ku xiraysid ii sheeg idhagayso ninkaan shahaadooyinka beenta ayuu sameeyay sidaas ayaana ku xoraya aniga markab iska xiraysaa bal ii sheeg maya dhabtaan saar lahan waana dhedhelsiin lahan midaada kale nin saanoo kale oo ciyaal suuqa adiga horta maxaa ku dabakiciyey sababtoo adiga waxaad tahay gabar sharaf leh waxaa loo baahan yahay inaad qof sharaf leh aragto kanoo kale maaha inaad raadsato adiga qof nacas ayaa tahay hey wejigay ka leexiya galbaabuur iriixno صوري أورك بدن ده صع هذا الكيد يسوق مدن كذا عم سيبني صع نقص صع كده وريا نيكل رادينو أنا واي أديك ميا أنا مع سمي صع صع وريا أنا مع سمي يا أخ أسكرتني إذنك واخد دميسان نك أرادين إنه ماشي ما تجوجو واخدنا كل كتير ناس كفتشي نك صبرك سلكيس واقعي كان ميا محسن صور محسن صع أنت اللي وضعها وضع أنت وش تسوي سنتوش واكنا كان ميا أديك ميا شنطة أمس شب صع مدن محسمي صع يا فلان مدن سكيدا وكبريا مدن سكيدا وحمد سمين ورامس صع مدن يدافع عاود كلام عاود هل كوجنا كلام واكنا يا حمود أنا واي شريك أديك ميا ها صع وريا صع وريا وريا وحيد تسمين أمس سمين سمين وريا وحيد تدرس سمين وحيد تدرس وحين شهادة بوجا سمين وريا أدين وريا وحول بأو خلد عدل سمين سموجرو شبنا ورا خدنا قريب يا هيد أنا مقعي وحلا أكاش أنا وحني وحبك ما أقرنتي أنا وريا أيام هاي وريا ها سكاي تي في أيام كشقيا سكاي يقصوا عليه سباي تي في أيام كده سباي تي في ها wiilkayga isdejidadkan waxay rabaan inay kaa xalaajiyaan شبنا adiga waxaad tahay nin saxafi ah balse ha isku malaynin saxafiga ugu khatarsan dunida inaad tahay
waxaadna isticmaashaa kaamirada qarsoon si aad ugu ceebayso saraakiisha waaweyn iyo booliiska iyo waxa la shaqeeyo dhan marka maxaad ka dheefaysaa waxaa ka dheefi lahayd hadda anaa ku tusinaayo ma garatay mar dambe haddaa waxaasoo kale samayso waryaa kaal igaarkiis kutumays beertaada maska soo baxay maxaa dhacay waryaa yaa tahay adna aniga awuu kaa tashan karaa liidhaa si fiican ii fiiri kana yaabay usna ii sheegbe wiilkaa garaacdeenaa biisana saan u tib dhawayst maxaskaa subi ii sheeg maxaa ku haystaa shahaado faalse ah ayuu samaynaya ninkan waxay sameeyeen dadkan shahaado faalse ah kadib markay samaysteen waxay tegeen bangiga waxayna ka soo qaateen lacag weliba hal bangi ma aha 5 bangi ayay tageen 5taasoo bangina ayagoo waraaqad faalse ah adeegsanayo ayay lacagta ugu soo qaateen ayagoo weliba 5 ah lacagta ay qaateenna 100 ma aha 200 ma aha waa 13 milyan khayaano ayayna ku qaateen anagu waan nabooya dadkan khiyaano meeshaan uu keenay anaga wax qaadan ma lahan saqajaan waaxid mudanaha hadlay inaad ka dabahayso looma baahno dadkan waaba soo aruursatay caddeen ku xirtid mahaysaa marka haa caddeen waa yaala keen waraa warqadda muujeedaa waraaqooyinkan oo dhan waa shahaadooyin faalsa ah oo ayaga sameeyeen kan muujeedaa waa faalso kana muujeedaa waa injineerin faalsa ah kana muujeedaa waa idhikaar faalsa ah kana muujeedaa waxay lacagtu bangiga ugu qaateen waaye khaladaadkan dhan ayaga ayaa geystay 5 bangina way ku dhaceen kana idhikaarkayga waabe kana baasaboorkayga waabe hay kana sawirkayga waabe hay haddana saxiixaygaaba saaran bay aabe sidaas darteed ayaanba kugu soo xihay ma fahanta arrintaa markaan soo baarnay waxaan ogaanay inay dadkan ay yihiin dad sidoodaba aad u khaldan baaris dheer markaan samaynay waxaan ku ogaanay in kaamirada CCTV-ga ay noo sheegeen wax walba oo caddeen ah sidaas ayaan raggaana ku soo qabannay weliba feelashooda waxaan aruurinaynay muddo 1 sano ah mudane adoo dadkan caddeen fiican ka haynin inaad iskaga fududaatid ma laga roono fiiri qofka hadduu aqoon leeyahay ama hadduu jaahil u yahay ama taajir hadduu yahay ama faqiir hadduu yahay waxaas waxaa go'aamin karo caddeyntan waryaada nimankan ii xareeyaa ku dhahay dhammaantooda waa ku baryayaa hadalkayga maya maya waa ku baryaa adiga leydhaaf waa mustaqbalka nolosha dadkan diinka dalka waa ku baryaa dadkan caddeen ayaan ku hayaa biliis shaqadii ha soo faragashanin waa ku baryaa igu qaadano oday isida war soo warya بسر يوكسي ودا بيغا قعنو قادس وسقطا كالي أدنا وسق يو قرر يعني كان قعماي لفاكي جميع وكبريا وويلكي وكبريا كيف ما لعبة الوعبة برما وكبريا فيكي ستادين وكبريا ويلكي وعريض بسيقنا عدامي مرقاتي مركي محكمة الأوركار محكمة شرفت لي وحا وعداتي دad كان لغو soo qabtay faldambiyad falsification taasoo ay wadeegsadeen bangiyada dawladda ay leedahay lacag fatiro badan ay ku dhaceen lacagtaas soo gaaraysa 13 milyan maxkamadda sharafta leh waxay go'aan ku gaaraysaa muddo 10 maalmood inay lacagtaas ku soo xareeyaan haddii ay ku soo xareyn waayaan waxaa lagu qaadayaa qodobka 417 kaasoo dhigaya 7 sano xariga maxkamadeena maantana halkan ayay nooga xiran tahay كان بسوا وانو دماتي بحر شكوان داني مقالة ميل أنتجين مال بسوا قفنا عاملين مال ما حسمينا صبر كان مال كستن والدقوا يا واكنا أنا تور مالين بسوا مركان مدني أنا هورتي أروح على هالله هاي تليفوني وعاونه سكب جنبه تاوريا كتير ما شاء الله واضل سطح أنا كسر تلي ما أنت أبي ودنا وكجري هاي ودني يسال خل روا marka xaaladiisna ogaada roo telefoon iyo caawiya inteed ganteed shiimo gas hooyada ma la socotaa inaad adiga xiran tahay ma taliya waayahay telefoonkii waxaa ku bariyaa warya nagaama okaadi sii telefoonka ho halo halo maye wiilkayga atiish xagee joogtaa aabbe sidoo yahay ii sheegba
wuu fiican yahay lacagtii deenta ma soo heshayna bal ii sheeg adiga yaa wiilkayga hooyo ana lacag deen maba soo helin waan soo waayey maxaad ku hadlaysaa aniga miyaad iga nixinaysaane waa maxay lama filankan umaye maxkamadda waxaanu aadaysay anaga inaan samayno shahaadooyin faalsa shahaadooyinkaasna bangi inaan u tagnay oo lacag deen aan ka soo qaadanay hadduu maaye mustaqbalkeena oo dhammaatay maxkamadda waxaa go'aan ku gaartay xafida inaan ula xero anaga yaa wiilka maxaa ku hadlaysaane wax waa ka welwel wax walba hagaagaya mar waa dhiktoorka ku yeedhay waayahay wiilkayga aniga ayaa kugu soo celinaya haye mudane macnaha waxaa dhii rabtaa aniga waqti halaysiimo laakiin waqti ma ku siin kara ninkan haddii adiga lacagta uu keeni weysid aabbayadaa la ka xariiri waa dhimaha mudane saas maxaa uga hadlaysaane waa kuu keenaynaa lacagta mudane haddii lacagta aad keeni weysid anaga operationka waa joojiyeynaa ma fahmino haddii kale beesakan nasiibkaa qabtaa haddii lacag kan haysanin isbitaalaalku waa jirta oo lacag la'aanga meesha iska tag maxaa meeshaan ku keena haddii beesan haysanin iska bax aniish uma idinku waa isoo koriseen heerkaana isoo gaarsiiseen anigana wax waan ii qawaya maanta sidaasaa u hadlay wiilkayga wax walba way hagaagayaan yalla hadlow saaxaadkii aniish waaye aniish waxaad dhehaysaa isbitaalka iyo inaan arkaan rabo laakiin ad maxaa u ooyaysaa shahaadiyaal faalsa ayay sameeyeen مدن ولا مسمين مدن ولا مسمين ما يواسدين أنا واحد مسمين ولا نفسه يا لا مدن وربحنا سيبل dadkan anagu waxaan samaynaysaan dambi dusha naga saaran waa dhammaantood waa dambiilayaal bangi ayay dhaceen dambigoodana waa in lagu qaadaa aniish wiilkayga maxaa kugu dhacay ma ila hadashidne lacagta haddii aad heli weysa iska soo laa waa ku baryaa wiilkayga aniga marweyna adiga ku waayo waa ku baryaa wiilkay wax walba hagaagaya ii soo laawo kaale aniish miisne aniish halo aniish wiilkayga mii maqlaysid miya maxaa kuugu dhacayne ilaa hadalna wiilkayga anigoo ku shil ayaa meeshaan ka dhacay waxaan u baahnaa si degdeg inaad ugu soo aniish wiilkayga maxaa ku dhacay aniish wiilkayga iga fogaan waa ku baryaa dhegeysta ma aqaano wax nagu dhici doono midkaan ay shaaduunka u sameyn mid ka mid wuu isdilay hadda aniga maxaan u dambeyn doonayaa asxaabe cabsi ay ugu jirto qofka fuliga inuu noola sii shaqeeyo maba loo baahno maxaa yeelay hawsheenna ayuu caqabad ku yahay marka waa inaan waddadeenna ka leexinnaa waryaada meydkiisa iga dhaqaajiya dadka waxbarashada deenta ku qaadanaya waa inaad maalmo kooban ka joojisaan haddaan joojino bangiyada aan deenta ka qaadan hadhow annaga waynoo dhammaanaysaa waana khasaaraynaa waxaan ku amro waa inaad samaysaa waayahay walaal warkana soo gaara hadda ayaa wuxuu yahay 5tii wiil ee ku shaqaysanaysa shahaadooyinka bugta in gacanta lagu soo dhigay ayagoo xabsiga loo sii wadan ayaa mid ka mid ah baabuurka iska soo tuuray wuuna geeriyooday wiilkaas afartii kalena maxkamadda ayaa racfaan loogu qaaday waana la sii dayay balse kiiskooda lama laabin ilaa hadda waa lagu gudu jiraa waa kana subar loogada guriga gacantaada ku qabsato guriga wax walba oo yaalana suuqa geey waad iibin kartaa guriga xataa haddii aad u baahato iibi intaas aan ugu badbaadno nidaamkan iyo waxyaabaha wiilkayga lagu soo eedeeyey beri leh ha ii noqdo halkoo mar wiilkayga waa maxay waalideen aadan timid adiga haddii aad gurigaaga iibiso ma waxaad mood inaad maxkamad ka badbaadayso kama badbaadiso waayo wiilkaaga fariisa iyo caddeemihiisa ayaa maxkamadda wada yaallo meel walba uu tagan ninkaan shaqa lagama siinayo sababtoo ah meel walba waxaa laga ogyahay ninkan inuu shahaado beena ku qaraabto mideeda kale hantidaada aad xaraash wiilkaaga kuma badbaadayo
mudana kaash waa og tahay muddo isbuuc gudahooda waa inaa keentaa waraaqooyinkaaga waxbarashadoo dhan tifigiinana waa tifi caalami ah marka waxaan kaa codsanaynaa inaa keento shahaadooyinkaaga jaamacadda akaash wiilkayga feelalkan si fiican u fiiri waa feelalkii idinka shantii laydinku soo dacway balse kiiskan shantiinna oo keliya maaha dad kale ayaa ku jiro 2 bil ka hor waxaa la soo qabtay 2 qof 15 bil ka horna 1 qof ayaa la soo qabtay marka haddii kiiskan la sii baaro ilaa 15 qof ay dadka gaarayaan dadkan meesha lasugu wada keeno dhan dawladda waxay u haystaa dadkan oo kulli inay iswada yaqaanaan balse isma wada yaqaanaan xataa geelooda isma daaqo balse hal meel oo keliya ayay isaga eg yihiin shahaadooyinka faalsada ah balse shahaadooyinkan faalsada ah waxaa lagu dhacay hanti badan oo ummadda ay leedahay balse kiiskan oo dhan waxaa ka dambeeya hal nin halkaas ninna waxay dawladda u baahan tahay in gacanta lagu soo dhigo akaash aniga matal ahaan inaad meeshan igu fadhiiso ma rabo ninka hawshan oo dhan kale furfur lahaa waa adiga waa inaad wax qabataa wiilkeygii ay maxaa soo wadaa wax kale ma soo sawirka meeshan ku yaala iyo sawirka shahaadada saldhigga booliiska taala labada sawir waa ay isku eg yihiin okay haddii isku eg yihiin marka jaamacadaha dawladda waxaa lagu dhintaa shahaadooyin faalsa macquul ma ya akhay jaamacadda waxeeda dhan waa kontroolaya see wax wadaade sidee ku dhacda marka feelkan iyo feelkan inuu hal sawir oo keliya noqdo ya shankar sawirkan meel kale ayaan ku arkay intaa ku aragtina maqal xafiiskan subaxii meeqa saac ayaa la furaa sidan ayuu u xiran yahay xafiiskan waqti la furana ma aqaano yaa waay war sidee wax kaa yihiin aniga islaanta ayaa la hadlay adigan irid ayaa jebisay maxaad u jebisay ii sheeg bal aniga hadalka maana dhammaysan adeer islaanta soo maqlayn warkeeda waxa ay dhahaysay meeshan muddo lama furin teeda kale qufulkaanna waa uu cusub yahay meeshana kuma yaalaan raad mirir ah marka saas darteed ayaan u jibiyey meeshanna waan ka shakiyay anig marka aan jibinno gudahana aan u gudubno anumaan albaabkan fur meeshan waa mugdi sidee wax u jiraan meesha nalka laga shidaayna waa batan waan u jeedaa okaada anaa shidaaya shitaan nalka okay waa ka waa shida saca male meesha wax badana buuxa bayaa waay waa la soo aruursid shit meeshan waxba ma yaalaan wax dhan waa laga aruursan markii horan kuu sheegay meeshan wax ma yaalaan ku dhahay aniga waxay ila tahay kombiyuutarada dawladda in laga soo baxsaday naga tagaya akhay naga xanaajisana شهادة اسكول مد جامعات مد بوليس مد دكتور عمل شهادوين كان تكي ماذا كل يقول كان شهادة عفمات بايبه يا shahaadada sawirka ayaa saaran misna magacaaga ayaa ku qoran midaada kale waxa loo maleynaa shahaadada dhabtaad inay tahay waatan ila fiiribal meeshan ila fiiribal fiiri meeshan timbrooyin badan ayaa ku jira jaamacadda madaar jaamacadda shimlaa jaamacadda rajistaan jaamacadda madaraas jaamacadda balambuur jaamacadda bangaloor jaamacadda jaybuur
intaanoo jaamacad siday tiimbarooda ku heleen tiimbar oo keliya maaha aniga waxay ila tahay waxyaabo kale ayay dadkan hayaan waxyaabahaas ayaan u fududaynaya hawshan oo dhan sideen marka anaga dadkan uga salgaarnaa waa inaan raadinaa xal ilaa ay hadda laakiin aniga waxba ma fahmin maxaa wax fahmaysaa teeda kale xitaa bangiyada shahaadadan in wax loogu soo qaato oo keliya ma loogu talagalina ardada aanan shahaadada haysan in shahaado loogu sameeyo ayaa loogu talagalay laakiin midaan ku warsanaa shahaadooyinkan dhan meeshaan maxay u dhigan yahay taasaa isweydii mudane aniga waxay ila tahay shahaadooyinkan inay ka hadlaabeen taasaana keentay shahaadooyinkan inay meeshaan dhigan bal fiir meeshaan shahaadada ka hadlaysan aniga waxay ila tahay meeshaan hal qof oo keliya inuusan ka shaqayn dad fara badan oo isu tagay ayaa ka wada shaqay sababtoo ah arday walba markuu meeshaan imaado warbixintiisa saxda ayaa laga qaadaa kadib shahaadooyin fara badan oo isku nooc ayaa la sameeyaa isku nooc maxaa ka wadaa waxaan ula jeedaa hadda fiiri indii waxaa ku taal 42 jaamacadood jaamacadahaasna waxaa dhigata 500 oo arday ah 500 oo arday ah waxaa laga helaa hal qof oo magaciisa u yahay anuugaas ayaa waxaa laga samaynaa marka boqolaal shahaado ah isaga magaciisa oo la isticmaalaya kadibna shahaadooyinkaas dokumenti falsa loo samaynaa waa lagu dhejinaa qofkii u baahnaa markaas ayaa si tartiib loogu iibinaa marka hadda fiiri labadan shahaado hal magac ayaa loo wada isticmaalay qaabka registrationkan waa isku wada mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin labada sabir oo keliya laakiin dadkan waxaan samaynaya maxay ka faa'iidayaan ilaahay taasaan fahminaa dadkan ii ka faa'iidada ma qaban laakiin ardayda qaadanaysa faa'iidada ku qabtaan ku dhahay shahaadadan taasayna ila tahay aniga waa saxan tahay adiga saas u dhintay waddankeena saas ku gacan galaya markaasi hawshaana dad badan ayaa gacanta kula jiro shahaadooyin fara badan magaalada ku jiro nin walba sawirkiisa oo shahaadadan ku sawiran saasaan kusoo qabsanaynaa saasaan sawir wax laguma raadin karo waxaa loo baahan yahay dadkan meesha ay xafiisyada ku leeyihiin in magaalada meesha ay ka joogaan inta tiradooda ay lag tahay intaas la soo dadkan waxa ay yihiin horta ma naqaan waxa ay sameeyaanna ma naqaan sida ay u sameeyaanna ma naqaan balse raadintooda inaan isku dhibno looma baahno waayo dadkan iyaga ayaana soo raadsanayaan anaga middaas waa inaad maanka ku haysaan qaab sidee ah wararka ugu dambeeyna soo gaaray wuxuu sheegayaa baryahan magaalada inay ku soo bateen dadka samaynaya shahaadooyinka faalsada ah balse waxaa shacabweynaha aan ka codsanaynaa dadka aad ku aragtaan shahaado faalsa ah waa inaad ku soo wargelisaan saldhig idinkugu dhow tusaale ahaan hadda waxaan rabaa shakhsigan aad idin tusaa magaciisu waa bangad kumaar da'diisuna waa 40 jir wuxuuna sitaa shahaado faalsa ah ciddii aragta waa inay saldhigga boolis ku soo wargelisaa sida ugu dhaqsiyaha badan halo mudane tifiga ayaa sawirkaaga la soo saaray sawirkayga ah haa xitaa warbixintaadoo dhan baa la soo saaray yaa shahaadooyinkayga xitaa ninkan waa goofi raaj waana 40 sano jir 2006 ayuu jaamacadda ka qalin jibiyey wuxuuna bartay dhakhtarnimo shahaadadiisana waa bug ninkan waa sinha waana 48 jir shahaado buga ayuuna boolis ku noqday magaciisa waa siimiiqaan waa 48 sano jir wuxuu sanadkii 2005 ka qalin jibiyey jaamacadda dhanka dhaqaalaha meeqay dhan yihiin ninkan waa raawul waana 40 jir wuxuu wataa shahaado dhanka caafimaadka booliska mana soo dabagelin wax raadkeen ahna ma helin laakiin waxaan u maleynayaa arrimahan inay been yuu noqon karaa qofka awooddaas iska leh oo aniga dacwo iga gudbin karo waa inaad soo ogaataa qofkuu yahay dadkan dad hal meel ka shaqeeya ma aha ninba gooni ayuu shaqeeyaa marka sidee ku ogaa karnaa annaga arrimahooda waa gartay waxaan kaa rabaa inaad soo ogaatid cidda isku dayday inay shahaadooyinka faalsada sameeyaan sida annagoo kale ii soo ogow viki walaal anaga warbixinteena waxaa laga bixiyey gobolka shifgaar ilaa warbixinteen oo dhan waxaa laga sameeyaa gobolka shifgaar walaal u kaadi walaal shahaadooyinka ay dhibtay waa 51 hal qof ayaa ka maqan qofkaasna yaa ka maqan magaciisa waa shankar da'diisuna 32 jir shahaadada ninkan watane waa abukaatanimo wuxuuna ka soo qalin jabiyey jaamacadda Bangalore halo akash at wax fiican masuubin shahaadooyinka wixii weydiinaysna saalima saahi adeer isdeji adiga wax ku gaaraya beeraatee ma jirto ani kaliya waxaan rabaa dadkaas inaan shabaq kaaga dhigo akash aan waa baqooya runtii zaa'id weliba adeer waxba ha baqin aniga ayaa kula jira anigaana ku ilaalinayo magaciisu waa shankar waana 26 jir 2002 wuxuu ka qalin jibiyey jaamacadda Bangalore qofkan qof baa ka dambeeyo qofkaasna waxaan ku heli karnaa waa inaan soo afduubanaa asiga iisoo kaxee alo akash adi meesha igu balamisi aan hadda joogaa maxaan sameeyaa ii sheeke
warkayga si fiican u dhagayso dadkaasi way ku imaanayaan wayna ku afduubanayaan ya afduuba aan ma ku jiriya fiir adiga baqdinta iska dhaaf haddii ay ku afduubtaan waxaan ogaanaynaa marka hawshan qofka ka dambeeya iyo shahaadooyinkan bugta ah cidda soo samaysa akaasha warkaan markii maqli runtii waa cabsaday laakiin adi see ku ogaatay idhagayso dhismaha dhinacaaga ah si fiican u fiiri weliba dhankaaga bidix qof ayaa meeshaas taagan taas waxaa kaaga daran dhankaaga midig fiiri 10 tilaabo in ku jirta ayaa 2 qof taagan labadaas qof telefoon ayay ku hadlaayeen hortaada fiiri 40 tilaabo in ku jirto 2 qof kale ayaa taagan labadaas qofna adiga ayay ku soo dabagalayeen laakiin akaash aad intay joogtaa ii sheeg adeer ani kaama fogay gaari gaduudan ayaan ku jiraa weliba 30 tilaabo ayaan ku jiraa walaal ninkaas telefoon ku hadlooyaa telefoonkiisa isaga hadlo laakiin waa daruuri qofku ula hadlaayo halkan ayuu imaanayaa adiga haddii lagu afduubto qorshaheena waa uu hagaagaa marka ogolow in lagu afduubto horta qorshaaga adjaa waay laakiin maxaan suubiya ii sheeg adeer hortaada waxaa taagan nin shaati garey wata ninkaas shaaxa u cabooyaa u tag waxaan ku dhaha oo keliya ku dhahay meesha ha taagnaanina dhaqaaqa ninkaasi la hadal orod يا أخي إننا كسينا سان ولا هذا وحي الروم الصوبنا في روك سلام يا أخي يروح على ذا أنا وانفعنا بس صديقته والله اللي كان نبول هلو يا وحين نصل شيء كسوين من إسيقان أوكله إن أمر هالمر أوكليه أوكادي وحيرا ينسوقينا تذكر waxaan maqlay ina guursatay waliba ilmo lagu dhali ya akhay sawa anan ma isoo wicin taas khalad mayno ina xal wadaada cunin يا أخي أديك محد كهدلي أنا ولي ما قرصي أسكح حناق ترتيب يا أخي فيري نينكاس وينت كارك تستا فيري أبو هرتا كاركان فيري أو كاتان متقانا والله نيكا إيدي كاركين يودت كتسويا ماما أبو كاتان أخوه ديك سين أنا كوشا أو كاتان جوجلا كبار محدا ماشي لان جوجلا هذيك ما كرست أنا وحقيقة كلام حاو حناق هذا إزدجي يا أخي سعمل أكو ديلا اللي عنوي أو كاتان كوشا حفيز كيجن ملدر مكيال ماشي اسمه جدا باركو دقن كاسنا أنا إيشقيا وجدا شغالة إسكميديا لما داسنا وجدا حكتاعنا يمكن أنا لا إيشقيا إنه شغالة شيء ده لواي نيكا بابا كتر بي أيضا كان يودت تسويا معقول من نقول سني كانوا كل الناس كخونوا أي أمر مضن كارك جيب كيس كلي كارك إيه كان أرد ماشي أيوة كاتك تشاو يا نيكا بابا تجيب ما حد سوق يسان سوق خبطة نحسده خبطة يا أخي أنا شحال من وصل يا باستر ما تقدر صفي صفي روح على التليفون برافو روح على قال لي معكو جرن كده walaalka ninka boostola buu beesay boostiis waa baan boosti wax la soo bixiya boostola wareedi war ninkan cayaar ayuu waday qabta madunkiisa marsiya ya jooji war hooy kama kaas way wasi cabdo ala soo qabto abo wajida ay soo socdaan inay afduubtaan ay rabaan laakiin soo deeyde wixii haysiin soo gamade aniga ma ka ordayaan inay ku afduubtaan dadkan uma soo socdaan maxay soo socdaan adiga inay ku dilaan ay rabaan alo baa dilo jadasha ma ku jirin sabay akash nimanku ay ugu badan yihiin waana ii soo dhow yihiin wax la sameey akash maxaan sameeyaa akash wax sameey wali kaarar ya akash adiga sii orod haye aniga ka dabay mana carar haye akash hadda fiiri ninka waa qabtay waxaan laga yaabaa inay dilaan waa ku baryaa wax samee كان baabuurka xoogga wadaan ku dhahay dhaqso waryaada ii soo dejiye ninkan
halo haa walaal waa soo afduubiyaan ku dhahay intiin soo afduubin usaab lugtiisa igu imaade wixii qabsalahayn usaa ii qabtay nacas ayaa tahay yaa war ninkaas adiga ma soo afduuban ee waxaa lagugu talagalay in lagugu shirqoolo looma baahna ninka odiga inaad soo afduubato ee waxaa loo baahan yahay ninka asiga difaacaya ee ku daba socda soo afduubo wuxuu rabaa warbixinteen oo dhan inuu meeshan ka helo intuusan ninkaas isoo gaarin waxaan rabaa inaad u dhammaysaan sida ugu dhaqsiyaha badan waayahay asaga iyo caddeemihiisaba khaarijiya dhammaan yalla waryaa soo fiiri مالديتي أبوه وقت في عنا تمت وإبد بادسي هدي أدي أت إيمان لهن وأكتينه ما يودع إلهي ويكف صلها akhbaaraadka maantana soo gaara ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda ay gacanta ku dhigtay meelihii lagu sameynayay shahaadooyinka faalsida ahaa ilaa ay haddana boolisku waxay baadgoob ugu jiraan dadkii ka dambeeyay arrintaas iyo kuwii madaxda u ahaa waxayna sheegeen inay maxkamad soo taagi doonaan kadib markii ay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyay falalkan booliskana way ogaadeen dadkii ka dambeeyay falalkan sidoo kale meelihii shahaadooyinka bugta lagu sameynayo waa la soo xiray waxaana gacanta lagu dhigay dadka shahaadooyinka bugta sameynaya dadka xiriirka la lahay sidaasoo kalena waxaana soo gaaray in arday badan ay qaateen shahaadooyinka bugta ay kuwaas oo ku raadsanayeen shaqooyin goobihii shahaadooyinka ay ka soo qaataanna waa la xiray dadkii dambeeyay filkaasna waa la xiray ardadii shahaadooyinka bugta qaatana dhammaan dibadda ayay aadeen waxaana la xaqiijiyay in bangiyooyinka ku yaala waddanka ay xiriir la lahaayeen kuwaasi shacabkana waxay bilaabeen inay sameeyaan mudaaharood aad iyo aad u fara badan dooni mayno shahaada falso shahaada falso arday badan ayaa halkan taagan oo shahaadadoodii lagu khiyaamay haddana ayagaan wareysanaynaa aniga waxaan soo bartay kuliyadda injineeriga laakiin maanta maxay kugu taalaa xamaali aan ahay shahaadadeena waxa ii qabatay maba jirtaan ku dhayno adigana mudan uskaligiis ma la khiyaamin ana kan waan la khiyaami caseeyaan ahay saacadaan wixii laga bilaabo laakiin dadkii shahaadada been ay sameeyeen waa soo qabsanaa ani
ardadii lagu siray shahaadada falsa ah ayaa waxay tageen bangi waxayna ka qaateen lacag waxayna aadeen dibadda si ay u gudaan deentaasi kadib markii lagu dhagray shahaado falsa ah hase ahaatee waxaa la soo ogaaday dadkii ka dambeeyay falalkaasi qaar ka mid ah inay boolis gacanta ku soo dhigeen inta kana lama haayo balse waxaan ogaanay dadkii ka dambeeyay falalkaas foosho xun madaxdooda in la soo xiray wixii inqaab ah ee mutaystaana la marsiin doono ma aysan noqon sidaan annaga wax u malaynaynin falalkan dhacayana dad waaweyn ayaa ka dambeeyey akaash baro baleemka ugu weynaya hadda waa xalisme adigana hadda si wanaagsanaa u shaqaysan kartaa hawshaada si deganaan waa inaad u qabsataa maya dhibaatada weli maysan dhammaan hadda ay bilaaw tahay shankar adiga magaaladan ma ka bixi kartid okay maya abo telefoonkaagana ma isticmaali kartid waa ku tuugaa si inay badbaadiyas codkaada hergeba ku dhacay ma lagu fahmayo qof kale lagu malaa luqunta qorta ay gelinin isdaji waxbaa ismurjin arrinkan qof ka dambeeyo hal qofoo keliya maxna anaga intaan raadin ka hor waxaan ogahay aniga asiga inuu soo raadin doono intuusan ogaanin annaga ciddaan nahay annaga waa inaan ka hor tagnaa qofa dilkan ka dambeeya الو مين مقشة ألفون يا جوج مشان واكم قفك مشان جوج filimkan waxaa lagu tarjumay studio Fambroch Mogadisho booliska waa imaadeen wax walbana waa qaateen wax ay reebeen meeshaan bayaraatee ma jiro kulli waa aruursadeen go'antaasan ku sheegay caddeemo meeshaan yaali dhammaan way wada qaateen xataa far kama aysan tegin ciidankeenniyoo joogo miyay caddeemankii oo dhan qaateen weliba ayagoo caddeen lagu aqoonsada aanan ka tegin alloora waxbaa qaldan hal raadiyo Georgia. وكاذية halkan waxaa lagu qariyay kaamirada qarsoon si loo ogaado cidda aan nahay iyo wejiyadeenna si loo aqoonsado qofka kaamirada halkan ku qariyey wuu imaanayaa annagana waxaan ku qasbannahay inaan halkan ku sugno waana sugaynaa waana hubaa inuu halkan imaanayo
soo ma ogid inaan ku walwalayna yaa ahaayeen dadkaas naga aamus adiga wax walba xad ayay leeyihiin laakiin adiga waxaa samaynaysa waa bilaa xad xayeysiin aad telefishinkaagu samaynaysa ayaad rabtaa nafsadaada inaad hadla guyso midaada kale waalid ayaad leedahay walaal ayaa kula dhashay baryaana waad la socotaa qofkii farta lagu fiiqay isla marka hore ayaa loo sii dhaadhicinaya adigana waxaasoo dhan kama aadan fikirin dantaada oo keliya ayaad fiirsatay waxaasoo kale looma baahna inaad samayso shit adeerukaadi anaga tv-gan xayeysiin iyo inaan kor u qaadno uguma talagalin arrinkan haddii aan kuu sheega waxa ubaala adiga inaadan i fahmin balse isoo raac meeshaanna maxay ahayd haddana waxaan oo dhan waa shahaado faalse ah caddayntoodana annaga gacanta ayay ku yuu yahay qofkan waa doctor mehra doctor mehra aad u jeedid wuxuu wataa shahaado PhD ah shahaadadaasna dadaal uu ku gaari kuma uusan heline lacag uu bixiyey ayuu ku helay 8 sano ka hor ninkan magaalada Bangalore dhexdeed ayuu wuxuu ka furtay farmashiye yar farmashiyahaasna muddo 1 sano gudahooda ayuu wuxuu isku bedelay isbitaal weyn dhaqaatiir fara badan ayaana ka howlgalay isbitaalkaas qaliino fara badan waa lagu sameeyay sanadkiina meeqa ka soo gashay ma taqaana 70 milyan ayaa ka soo gashay isbitaalkiisana waxa lagu sameeyay 130 qaliin 130 kaas qaliin inta lagu sameeyo dhan hal qof ka badbaadi malantooda waa ay dhinteen dhaqaatiir ayaa ku jirta askar ayaa ku jirta arday ayaa kamid ah caruur yaryar ayaa kamid ah haween ayaa ku jira taada kale booliis ayaa kamid ah dhaqaatiir xitaa waa ay ku jireen markaas xanuunsanaa sidoo kale injineer computer ayaa ku jireen oo meeshaas ku dhinteen ma taqaana sanadkii inta soo qalan jibiso 1000 arday ayaa soo qalan jibis 1000 kaasna waxaa laga qaataa 40% 60 ka soo hartana magaalada ayay tuugsadaan taasoo dhan waxaa u sabab ah cid kale ma ahan waa dadkan hawshan oo dhan fududeeyay waan dareemi karaa wax walba aad ku hadlayso in ay run yihiin balse waxaa adag dadkan sida aad sharciga ku horkeen wixii aad isku daydo waa hubaal inaad samaynayso dadkaani gibigooda inta laisku keena ayaa la maqaar fiiqi karaa marka hore waa in laga bilaabo dadkan kuwa shahaadada falsada samaynaya kadib ayay wax walba laakiin unugu wax caddeena ma haynay maxaan ku howlgelinaa caddeena la iska rabaa mawaalinteed ii sheegsay hal caddeen ayuu noo dhaafay caddeentaasna aniga ayaa ahay laakiin sidee waa shahaadadan falsada ah marka hore shahaadadayda ayaan qaadayaa waxaan u geynayaa qof waxaana leeyahay shahaado in lii sameeyo ayaan rabaa magacayga oo keliya ayaanu sheegay anigoona siin registration numberkayga iyo dukumiintiyadeeda dhan qofkaas haddii uu shahaadadeeda sida ay tahay u sameeyo waa qofka ugu horeeya aan beegsanayn kaas ayuu noqon doonaa mana sii deen doona keligiisana ma aan hawshan cidda la wadaagto dhan gacanta ayaan ku soo dhigi doonaa markaas haya adeerka dhib ma jiro okay waan ku dhahay gacantan ku hayaa seebay laakiin waxaan ku weydiiyaa sheekadan sheeka khatar ee waaye maxkamadda dhexdiisa maxaa loo keenay shahaadooyinkan adiga dabaala tahay wixii dambiile ah meel kale ma laga helay maxkamadda gudaheeda laga helaa ay kor la keenay dambigooda la caddeynaa haddii la rabo gudaheeda ku jira sug ana ku geeya waa ku tusaa original ee soo gala soo okay horta abo waxay raadi hoysig idinka caadi ma aha laakiin aniga dad badan aan aqaana dadkaas badan kumanaanay gaaraya laakiin 7 qofood shahaadada idinka aan raadiyoosi originalka sameehay ayaa macquul in isku jiro ani midin gey karo waxa idin siinaa adreeska haddii tagtiin hooshina ninkaas waa idin fuli karaa ninkaas magaciisa aan idin sheego nakish nageera lahaa shakigayga run ayuu noqday booliska waxay yimideen 9:20 ها بوليس كوا إمادن وحي روينا واسوب سدان واسك بحين محا وحكال ما جرم عدينا تامنو رافن أنوك soo lagama yaabo ninkaas inuu yahay boolis maya haddii qofkaasi uu boolis ahaan lahaa wuxuu shaqayn lahaa inuu laaluush qaato ama inuu bilad helo hadduu bilad helana tv-ga ayaa lagu soo bandhigi lahaa haddii uu laaluush qaadan lahaana annaga ayuu noo imaan lahaa kadibna laaluushka ayuu naga qaadan lahaa laakiin waxbaa qaldan ninkaas hadduu boolis ahaan lahayn maxaa anaga xogteen akhbaaraadka laga soo dayay ii sheeg bal weliba isla hal waqti
warkii u faahfaahsan waa sidaan magaciisa waa goofi waana 40 sano waxaana lagu qabtay shahaadooyin aan jirin ilaa hadda booliska gacanta ma aysan ku dhigin arrinkan waad arkaysaan baryahan dambe magaalada ayuu aad ugu soo batay balse booliiska dadaal dheeraad ayay ku jiraan horta hawshan cidda soo faragelin kartaa cid kale maahayn waa qolo wariyaal ah oo rabta kanaalkooda inay horumar gaarsiiyaan ama kanaalyo kale in ay u qaybiyaan laakiin waxaan idinka rabaa idinka inaad samaysaan wariyaalka meeshaan goobjoogga ka ahay idinka ayaa raadinaya kuwa meesha ka maqan soo maaha aniga ayaa aqaano qaabkaan u raadsan lahay iyo sidaan ku heli lahayba marwo ha soo hadal nagashwar ayaan rabay ma joogaa wax yar isug nageesh haye yaa qof ayaa kuu taagan haye maxaa jira ii sheeg waxaan rabnay shahaadooyinka faalsida kiis ku saabsan soo wadiya banaankii baxan ku idi ya maxaa dhacay wadalkay maqleys ma wadiya bax banaankooda way mister nageesh admiya ii sheegbe laakiin idinka intana umaadiin ma la rabin waxaan raba inaad meel kale aad umaadiin sababtoo magaalada kaamil ku xiran laakiin waxaan weydiyaa shahaadan aad rabtiin noocee waa ishkaal nooc iskoon miyaa ii sheego maya iskuul maahan waa shahaado injineerin ah horumaris ma ihaasin idinka ها والله هايا ولي بإيدو كاش أنا كسينا kaarkaana aan idin dhiiba gacanta migisaada magacaygaad sheegaysiin hoosh waan il fulihaa goobtan aad u jeedaan weligeeda ma dhicin in guri laga dhiso waa bustaajo tarin sidaas ay tahay waad aragtaan guryo ayaa laga dhistay meeshaan aad u jeedaan waa meel dawladda ay leedahay iyo shacabka mana loogu talagalay in dhismo lagu sameeyo bisha sagaal markay ahayd yaa soo sheegay shahaadooyinka faalsada ah qofka soo saaray waa kuma tv-ga soo saaray ii sheeg war haddii kale waad dhimanaysaa waryaa halo walaal arrintaas waxaa soo gudbiyey e t v dad la dhaho ayagaana ka soo baxay ii sheeg jaamacadeed rabtaa adiga aniga ha jaamacaddaas ii sheeg engineering ayaan rabaa engineering ah engineering si ciyaar laguma helo haddaan ku sii xataa adiga waad gacangelaysaa anna way gacangelinaysaa lacag fara badan ayaan ku hayaano ha ka baqintaas sidaas hadday tahay okay ciwaan baan ku siinayaa hawshaada meeshaa lagugu fulinayaa waad tegaysaa okay meesha هالو ها اخبارتي ايسو درت ترتيز ما ركتي قال لي عوج لي وانا اللي عبس قلي هذا مركو حكون شيغا نفس الدار بداتسو ماشي انا كتغا كداي هلو هلو انت سامع يشيد اكو سي نيوز كا رميش سي اذا عاد بلشدا u shaqeeya عاوي مقعن كو خرا اي شيك ان مقع جيف shahaadooyinka saxda ah horta waxaa lagu kasaa dhirirkeeda waxaa loo baahan yahay inay noqoto dhirirkeeda 27.9 dhanka ballaceedana waxaa loo baahan yahay 21.5 marka warqad ahaanteeda haddaan markii aan fiirino waxaan idin dhihi karaa warqadan ma aha midda saxda ahayd ee loo baahnaa in lagu qoro shahaado ahaan tanna waa shahaado faalsa ah wiilkaygii NDTV baryahan magaalada waxaa ku soo batay shahaadooyin buga in la isticmaalo akhbaartaana waxay qusaysaa shahaadooyinka bugta shahaada noocay rabtaa in lagu sameeyo injineering ma rabtaa mise caafimaad ii sheeg be waa lagu sameynaa sokol horta waxaa loo baahan yahay warqadda shahaadada lagu daawaco dhirirkeeda in isla ekaado 0.17 laakiin tan saasoo kale ma qoraalkan waxaan rabaa qoraal dhexdhexaad in is ahaado haddii qoraalka bato wax faa'iido ay leedahay habiiraatee ma jirto halo giita soo hadal ها أباي أنا شهادة أنا وتا وحلي ويسا مش أنا أنك كاني sug aniga kugu soo celinaya
walaal naagta soo saartay waa indira tv ha waan hayaa soo socda meesha anaan geeha inta waayo waa di salaam idinkan walaalka yalla ma ku wada shahaada falsi u baahin in loo sameeyo okay lamada isku baahan soo dhow shahaadada injineerka waa kana iyo warqadda caddeynta annaga markii shahaadooyinka naloo keeno waan fiirinaa haddii uu shaki naga galo waxaan u isticmaalnaa aaladdan leesarka ah haddii ay saxan tahay way sheegaysaa balse tan waa mid qalad ah halo haashuurti aniga nina isa wacay wuxuuna ii weydiiyey magacaaga koley meesha aad degan tahay waanu soo sheegay wuu kuu soo socdaa marka sidaas ula soco adigana ya ma garatay waayahay mudan ninka halkan kuusoo tilmaamay wuu khaldan yahay meeshaan ma meesha kuusoo tilmaamay ee meesha kuusoo tilmaamay suuqa waa qolka 27 magaciisana waa seef dukaanka kan waay ayaan u malaynaa marka adiga halkaan igu sii sugayaa iga raali noqo seef adiga miya ani waay aniga xafiiska shaqaalaha ayaa liiga soo diray mudan ad ay soo diray okay cabdullah xaadir ninkan waxaa soo diray mudan ad aada la macaamil ciyaarna maahane dhanka dowladdu ka socdaa ee la macaamil waayahay halo ها walaal aniga akhbaartaad isiinaysay waxaa lii weydiiyey meesha aan ka keenay adiga ayaanu ku soo aadiyey dadkaasna way kuu soo socdaan waana dad khatara marka iska ilaali ayaan ku dhahay kaale maxaa waa shahaadooyinkan oo sawirka akaash ku dheggan yahay wax miyaa iga qarinaysaa waa ku ogaa wax baa jiro runtii ii sheeg waxay tahay waxba ha iga qarin aniga ila hadal mudane gabadhaan naga reeb ani adas raaceen okay waay adiga meeshan sii joog baabuurkan furiisa haya okay nafsa waardiye waa ku soo socda suq yaa khayseewa kaan laga fur qaylna leh hay walaalkum jooga kor saareen meeshan shahaadooyinka faalsada waa liigu samayn karaa soomaan waa lagu samaynaa weliba wuxuu egyahay mid originaalka ah waa cabsanooyaa tartiib anuumaan annaga maxaan samaynaa caddeemahan oo dhan waa inaan jajaxnaa gebi ahaanba intaysan dadkaas imaanin waayo waxaan u baqayaa saaxiibkayga akaash hallo waardii cidna hay ii soo deenin dadkaana anigaa meelaynaya ma fahantay raadiya weli wuu kulul yahay bakeeriga walaal ninkan waa nashaad faasalo sameeya xafiiska dowladda laga soo diray waxaa soo diray walaal AD okay adi iska bax adi inta fadhiiso okay kaalinta koowaad haddaad rabtid 5 malyan waay kaalin lamaad rabtidna 2 malyan waay ma fahmino lacag diyaar makaa tahay kac wariyaad maxaa u jiiftaa wariyaa ma shaqaystii adu waxaan ku sheegaa ninkan shahaadan uu soo samaynaa adaan ilaalinaya haddii jiifatidna gafuurkaaga oo ma fahmino marka ilaalin ku dhahay ninkan yaa weylagaan ku dhahay did ilaali weysid dhegaysta idinkana aniga soo raac soo baxa aadna sii fadhiiso idinka qofka aaraadiyosiin waxaa macquule toddobadaas qofood in isku dhex jiro haddii ninkaas heshiina waxaa macquule hoshiina inaa idin fusha ninkaas keliya idin fuli karo shahaadada lagu sameynaya waxaad u malaynaysaa inay tahay mid original ah
dadka meeshaan joogay waxay dareemeen inaan anaga soo galnay kulligood way carareen ee naga mariya अरे बाप रे बच गए मैं तो बहुत डर गया था ninka hadda shahaadada soo dalbaday jaamacadeeda lama heli karo ee magaca kaash ayaan u raadinayaa kaas ayaan siinayaa jaamacad kale aan u raadinayaa haddaba nasiibkiisa midka uu soo baxo madbacadooyin kala duwan ayaa shahaadooyinkan lagu soo kala sameeyey sawirkan yaa waaye makasaay aniga qofka uu yahay maad ii sheegtid war qofka uu yahay maad ii sheegtid waa nin aad u nasiib badan oo ku dhahay ninkan jaamacadda ETU aan u helay aan ku dhahay صح وايا قف نصيب بدن وايا bukaadi يا معاه magac waa isku mid laakiin waxaan isku mid ahayn taariikhdoo dhashay يا ما يسان معقول مان mal ma hasaniyo sawirkiisa qofkaas هاوا هايا واقنا haddayba sidaas tahay shahaadada saxda waa inaan fiiriyaa sidee noqotay ninkan waa shahaadiis originaalka اوكي هذا محسوب يا شيخ waa inaan walaal ogeysiinaa sidaan intee tahay اوكي waryaa way ku roon tahay ma ii sheegaysaa ninkaas qofka uu yahay halo walaal nin jaamacad ITU ka socdaan oo maad wuxuu doonayaa shahaad fiigan lagu sameeyo isla shahaadiis originaalka ay soo baxda aniga magaciis akaash akaash ya sawirkiisa haddaa hayso whatsappka igu soo dir okay walaal kombiyuutarka iga baara haddii uu shaqaalahan ka mid yahay dhaqso walaal wuxuu ka mid yahay dadka bangigii deynta ka qaatay walaal akash waan helay fanproj.com fanproj.com xagguu joogaa agteenuu joogaa walaal intaanan idin soo laaban waa inaad dishaan u dhammeeya ono hardiskiin ayuu qaatay xogtiin oo dhan asigaa gacantiisa ku jirtaa walaal meel walba waa ka raadin meelna kama helin aditi 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 intay ka baxday aditi aditi ku aaway iga raali noqdo aniga saaxiibka ayaa raadinaya halkaana shahaado ayuu ka soo doontay ma aragteenna idinka magaciisa akaash
yaa taa isku sheeg maxaasan halkan ka soo doontay ah adigan goosta sheeg Vicky walaalku inay soo wacooy aditi inta joogtaa akaash ibadbaadi aku waryaa ibadbaadi war adiga intaad ka dawa cararaysay shay rakhiis ah ayaa agtayda ku hilmaamtay shay agtaada khaali ka ah Vicky telefoonku uu igu damshay ninkaas soo roo malaa gabartaan laakiin maxaan ku soo beenaa ii sheegba ma cajimeynaa marka waa idin baryaa iska kayf sax anig maxaa idinka sameeyay waa kase ninka waa kaa roore waa kan isbadbaada ma malaysi afkaan kaa xiraa balan waay ma nuxseesi waa kase waa ku badbaadi u kaadiya ya waa soo laabtay ninka nalalka waa inaad demisaan ninkan ma doonayo inuu halkan naga baxsado okay بدنا dhageyso hadda lacaan ka bax hay kumar aabi kumar maxaad ma hurdoosaa kumar aabi yaabay
Vicky. intali meeshan waxaan kugu hayaa dadka baryahan shahaadooyinka faalsada sameeyey iyo xafiisyada dowladda meelaha ay ka shaqeeyaan intooduba intaan isu soo aruuriyay ayaan waxaan ku soo shubay haadiskigaan halkan yaalo dadkan aad u jeedid mudane cid kale ma ahan waa cidda ka dambaysa shahaadooyinka faalsa samaynta iyo liisaskooda habka uu yahay anigana intaan aruuriyaan halkan isugu keenay dadkan aad u jeedid iyaga keliya ma ahan waxa ay leeyihiin madax waa dad badan oo midoobay ahaa taliya laakiin annaga sideen ku ogaan wayn dadkan xafiisyada dowladda sida ay ku soo galeen iyo shahaadooyinka ee meesha la yimaadeen arrintaasoo dhan adiga ayaan kuu xilsaaray kiiskaas waa inaad soo baartaa mudane saraakiil fara badanoo waxaa jirta oo shahaadooyinkan faalsida ku shaqaysta migu hubtaa taliya waxaa ku xisaabtantaa booliis oo keliya maan dadkan shahaadooyinka faalsida ku shaqa madax saraa ku jirta dhowtiin waa ceebowe taliyaha ciidanka aniga ayaa beritol u tagay idinka waxaan idinka rabaa barnaamijkan inaad beri subax idaacada ku soo hawshooda waa inaad daadka raacaysaa adiga ayaan ku xilsaaray hawshaana ma raba cid aan anaga ahayn inay gacanta ku dhigto annaga oo keliya hanugu ekaato waaya taliya adiga ayaan ku xilsaaray si wada jir waa inaan wada shaqaynaa okay taliya ka baqintaas halo mid ayaan rabaa inaan kuu sheego liiskeenna dadka foojiriga sameeya booliiska ayuu gacanta ugu jiraa intuusan booliiska meediyaha u gudbinin waxaa loo baahan yahay inaad wax ka qabato haddii meediyaha loo gudbiyo waxaad ogaataa annagoo dhan baxar ayaan galaynaa aniga haddii aan baxar galana kulligiinna waan idin wada sheegayaa akash aan waa kuu sheegay mar dhow waxaan naqanaa awkaataa ugu khatarsan waddankan waana aragti maayno hadda akash haddii iga soo gaari lahayd maanta nafsadeeda waa u dhammaan lahaydaan ku akash aan runtii aadan u baqwe meeshaan muku kalsooni dalbeelaya aniga wiilaanaa igu dhacee sidii saxafiyo kale waxaan kaa rabaa arrimahan inaad soo saarto adiga ayaan kuu xilsaaray adiga waad waalan tahay sababtoo ah waalidkaaga kama fikirayso walaalaha kama fikirayso midada kale waxaan rabtaa meediyahaaga oo keliya in xayeysiin lagu sameeyo taasna maaha mid suurta galayso wiilkayga waxaan kaa rabaa wax walba inaad si feejignaan aad u qabato halow haye baleenkan ka warran aniga booliiska waa u dhammeeyey abukaatihii waa u dhammeeyey weligaa ma aragtay qof naftiisa lagu baryaayo haddaadan adiga arkin anigaa arkay si silcanna u dilay adiga waxaad dishay labadii ila dhalatay anigana waxaan si xun u dilay abukaataha iyo booliiska war adiga warbixintaad aniga iga haysid gacantayda ayay ku jiraan hadda adigoo saxafi yar ah ayaad rabtaa aniga afaareyga inaad faraha la soo gasho war hawsha adiga aad haysid hawshayda ayaa ka weyn saldhigyada magaalada ku yaalloo dhan aniga ayay i badbaadinayaan si ay ayaga naftooda u badbaadsadaan
bal waxaan kaa rabaa inaad isku daydid inaad gacantii igu soo dhigto asxaabay marka hore waan idiin salaamay taada kale annaga arday aynu nahay waxaynu baranaa waalidkeenna wuu nagu dadaalaa ilaa heer waxaynu gaarnaa aynu jaamacadda dhammayno balse waxaa soo baxaya qof shaydaan ah qofkaas ayaa wuxuu qaadanayaa shahaadada anaga aan ku soo dadaalnay kadibna wuxuu gacanta u gelinayaa qof aanan shahaadadaas mudnayn kii aanan wax soo baranayna shaqo qaali ayuu ka shaqaynaa lacag badan ayuu qaadanaa kii wax soo bartayna shaqooyin biidha ayuu ka shaqaynaya saaxiib hadalkan kaa dhex galo horto dad wax bartay oo caado qaata ayaa jirto oo laaluushina qaataan beentaada maan waa ay jiraan qofka wax bartay laaluush ha qaata dhib ma lahan laakiin qofka aanan wax baranin oo haddana shahaadada sare qaadanaya oo laaluush qaadanaya kaas ayaa qabasho u baahan inaan ka hor tagnana loo baahan yahay sidaanana saga fadhina ma ahan idaacadaha iyo wariyaashan waxaan kula talin lahaa inaysan aamusinay dadkaas fadeexadooda bannaanka ay soo dhigaan taada kale aniga dartayda 2 qof ayaa u dhimatay haddana maraba qof saddexaad inuu u dhinto arrinkan sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaan uga hortagaa dadkaasna meesha ay ka soo bilaabmeen waa inaan ka bilaabaa oo aan baabi'iya iyagoo dhan aanan ka harin mudane howshan anaa kula qabanayo maya linku aniga ma rabo dartayda inaad khatar aad nafsadaada u geliso taas ma laga yaabo maya horta aniga qof aqoon leh ma ihi laakiin dadka masaakiinta dhibka loo geysaayo aniga ma fiirsan karo sidaas darteed aniga howsha inaan kula qabto garabsiyaa rabaa okay waaya adiga maanta kadib linkuu laguma dhaho manjuu ayaa lagu dhaha waa fahantina waayahay wax warbixin ahna ma lihid warbixin aniga ayaan kuu samaynaya okay kanaad u jeedid waa okyaal waxaana kugu xiri kaamil meesha aad adiga fiiris aniga waan u jeedaa teeda kale taas waxaa kuu sii raacsan bahalkaan aad u jeedina waa sameecad waxa aan ku dhaho keliya ayaad samaynaysaa okay salaam mudan waa ku salaam walaalka ninkan wuxuu doonaya shahaada fiigan loo sameeyo magacaadi majnuud ID card ma wadataa haa waa wataa waxay kula qaadeen lacagta 2 milyan ilaa 3 milyan waa haya diyaar waay ay sii wataade okay haddii saas tahay anna waan sii baxay okay akash dadkan waddada farma ayay qaadooyin waxay la tahay meeshaas ay xafiis cusub ka furteen soo baxay soo raac waaya intii fariis adiga wixii warbaahin loo baahdo anaa kuu soo sheegaa warqada ah okay waaya soo baxay soo raacade linku saacadaada miiska ii saar si aan u arko qofka xafiiska soo gala okay waaya linku waa inaad gudaha u gudubtaa waxaana tagtaa kombiyuutarka weyna hawsha dhan ay ka socoto mudan feelka ay dad kombiyuutar mi qabanayo linku haa mudan gudaha qof ayaa ku soo socday isaga bax waaya bravo waan helnay wixii aan ku dhaho oo keliya sameey okay
shahaadada wadatid warbixintaada dhan waa ku qoranta Soomaali linku cadeemaho idil waan helinay marka adiga isaga soo tag meesha axsaanka ay sameys weligeeba iloow doono waa mahadsantahay okay soco fiiri shahaadooyin kale oo bug qof hadduu baad iisoo sheegaya waaya lacagtan hoos kusii dhiib soco yaa tahay walaal kana waa mid saaxiibkii bis hadda rabo inaan shahaado beenos aamus war meeqa jooraan kuu sheegan ku dhahay hawshaan jooji magacaa adigoon cabsanin su-aasha lagu weydii ka jawaab majuna intee ka shaqaysaa isbitaalka shoobaan ka shaqeeya aniga meeqa sana ayaad ka shaqaynaysa isbitaalkaas 8 sano nambarka isbitaalka ma haysaa nambarka waa 359 nambarka isbitaalka 359 waaye howlka kalkaalsooyinka ee shoobaa waay maxaan ka caawiyaa mudane isbitaalka shoobaa soo maaha haye maxaan ka caawiyaa manjunaad ma jooga maanta ma joogo shir ayuu ku maqan yahay marka maxaa rabtaa nambarkiisa ma isii kartaa okay anaa fiirinaya qad ku sii jir 98 intaas waay sankaleha ii taagine mudane teleefonkayga soo dhacooy teleefonkayga saaxiib qorshe fiican aad degtay beedi ii baara banaanka oo dhan soo baara idinka waaya saaxiib xaggeenay ba soo socdaanba xaggeena okay nalka dambe kursiga gadaal soo fadhiiso okay ma la jooga meesha yaan ay soo baxay haddii la joogay walaal anaga banaanka oo dhan waa soo baarnay cid joogtana ma lahan okay iska fasaxa ninkan waaya waa baxaya kansaan folxun dartiisa walaal maanta ii dharbaaxde hay okaalis intuu ku lawabo waryaa u kaadi ciil badana walaal okaalaan saandha maxaa ugu fiirinaysaa okaalaan suuqa laga helaa 100 ruble waaye ookiyaalaha aragtida maahan ee waa ookiyaalaha jaajuusnimada shit ciil badana waryaada ka fakarta soo qabta nawada adiga dhaqso meesha isaga carar adigana gaariga kici dhaqso okay niku soo carar qabta istaag waryaa istaag dhaqso كاميرا موت هذا أصحابي نقصد أخبارك نقصد لو صار يا الرواء نقصده war degdeg oo aan idin hayo ayaa wuxuu sheegayaa maanta waxaan idin soo dayn doonaa ninka baryahan magaalada dadka ku wareeriya shahaadooyinka falsada qofka uu yahay cadeen saxna aniga idin kaga keeni doona ninkaan rabo maanta warbixintiisa inaan idiin soo bandhigo qof kale ha moodin waa qofka ardayda baryahan dartiisa ay soo bandhigeen maxaa meeshaa ka dhacayna maxaan sameynaa hadda تيفيga akhbaarta dadkoo idin ma kala socdaan ii sheeg يا قيمش maxaa ka dhacay ana kaamirada ma uu jeediyo أنا ما فاهم لا أنا كأنا ماشي صيان هذينا صباح
akaash waa ka soo socdaa waa kay ha akaash 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 cajalka ii soo dur anaa kuu qabanaayo ها صاحبي قهوة واكناي soo carara idinkana gudaha gala dhaqsada gudaha gala akaash kaale soo gale akaash soo gal maxaa ka fikiraysaa soo gal waryaa tv-gaada haddaad doonaysa inuu horumar gaaro maxaad tiyaatarada ugu soo bilaabi wayse maxaa ku soo geliya aniga afaarahayga haddaad aniga afaarahayga faraha la soo gasho waad dhimanaysaa waryaa waxaa kaa maqan adiga dadka ayaanba kuu kala baxsanayn aniga aqoon iima lihid mana i taqaanid cidda aan ahay marba haddii aan goob dagaal soo galo lagama yaabo inaan dib u degto shaydaan noocaga oo kalena shabaq ayaan ka dhigaa halkan waxaad timid adigoo labadaada lugood ku socdo laakiin ballan waxay weh labada lugood inaan kaa jarjaro war markaan qalin hasta aniga wariye ayaan nahay laakiin goob dagaal markaan imaado ma dareemi kartid awooddayda intay leekaanayso maxaa sugaysaa akaash haadiskii ma shaqaynayo gaali soo gal toosi sidaan igare warukaadi ciil badan war iga war naga leex war naga tag wasaqee
shacabka ii daawanaya maanta waxaan gacanta ku soo dhigay qofka ka dambeeyey shahaadooyinka faalsada ardada beenta aana sameeyey dad been aana jago aysan lahayn gacanta u geliyey sida wada ogtihiinba waxaan sugaynay in la soo cadeeyo dadkii ka dambeeyay shahaadooyinka bugta in magaalada soo geliyo ugu dambeynna booliiska waxay gacanta ku dhigeen dadkii ka dambeeyay in magaalada la soo geliyo shahaadooyinka bugta laguna ganacsado booliiska ayaana gacanta ku haya hadda baryahan dambe booliiska carcar weyn ayay waxay ku hayaan dadka faraha badan ee shahaadada faalsada isticmaala waxay soo wada aruuriyeen inta lagu tabaayay inay haystaan shahaado faalsa haddii ay ganacsato ahlaan ama booliis ahlaan ama qofka uu doonaba ha ahaado kuwaasna waxaa lasugu keenay xabsiga dhexe ee waddanka sidoo kale waxaa la ogaaday qaabka sirta ay u samayn jireen shahaadooyinka bugta waana la soo bandhigay waxaan u jeedin waa muuqaalkii laga soo duubay sirtooda dawladdu waxay go'aan ku gaartay maadaama ninkan uu geysanin muujiyay sharaftii sumcadda waddankan uu kor u qaaday taas waxaaba sii dheer isagoo dhallinyaro ah ayuu runta iyo beenta kala saaray mudnaantaas isagoo muujiyey dawladdana waxay guddoonsiinaysaa abaalmarin kasha horumar gaarsiy tiifigeena kaalayaan ku dhahan baliyo akhbaar cusub daabadayaal ninkii shahaadooyinka faaliska sameynaya ayaa wuxuu isku dayay booliiska inuu ka baxsado booliiskana waxa ay ku fureen rasaastaasna dhaawac ayaa ka soo gaartay dhanka madaxa ah mudane haddii runta kuu sheego ninkan jugweyna maskaxda ka soo gaartay jugta maskaxda ka soo gaartay dartiis xubnihiisa xitaa ma shaqeeyaan asidhanne koomoo galiyaan ku dhahay dictore aniga hal mid oo keliya ayaan kaaga baahnaa middaasna waxay tahay ninkan caafimaadkiisa waayo ninkan arday badan sumcaddooda iyo sharaftooda ayuu ku dheelay nafsadoodana waa ay u waayeen ninkan waa dembiile dembiyadiisa raba inaan qaado adigana waxaa kuu sheegaa mataqaanaa ninka inaad cirbad durtid iyo inuu soo naaxaa la rabaa caafimaadkiisana ka warqab yaa waaya tolbeelay ninkan xaaladiisu way sii xumaanaysaa cirbadana waxaan ku diri ma aqaano marka hadda maxaan sameeyaa xaaladiisna way sii xumaatee maya ma samici karto ninkan waa inaa xaaladiis badbaadiyaa si ay ugu dhaqsiyaa badan kac soo kac waryaalablabo ninka maxaa ku dhacay sheeg ee mudane ka baxba ya waryaa adi maxaa samaysay ii sheegaa ku dhahay ninkan cirbad nooca durta ii sheeg adiga fiiri shahaado beena soo qaadanaysa kadib isbitaalka ka shaqaynaysaa miya adi waxaa ka mid taha dadka isbitaalka shahaadada beenta ku soo galay saasna ma la rabo waxaa la rabaa mataqaanaa isbitaalka sharaftiisa inaa kor u qaad mooye inaa hoos u dhigtid maaha idinkoo kale waaye dadka dhakhaatiirta sharaftooda ku ciyaaraya taawadayaal waa idiin salaameen waa anigoo akaasha oo KBC idinkala soo hadlaya